ciidamada laamaha ammaanka ee degmada Luuq ayaa maanta waxa ay saxaafadda u soo bandhigeen rag lagu soo qabtay waxyaabaha qarxa sida bambaanooyin kuwaasi oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka Soomaaliyeed. Cali Cabdi Mursal iyo Maxamed Cabdi Saalax oo ah ragga lagu soo qabtay qaraxyadan ayaa qirtay inay dambiyadaasi galeen. ninka asaga marka Maxamed warku wuxuu soo jeeday alaabtan in la aaso gabigeed meel la geliyo umad kadala muslim la dhabaateenin bastooladii uu dhiibay wuxuu yiri madax bilaaye geed hoostiis geedkaas u dhig meesh geedkan oo geed ala gorab uu ku yaalay waxay farshada ka soo horjeed dambigan maran galay laakiin hadda kuma jiraan mar baan galay oo la igu qalqaaliyay waa galay hadda qof walban wuu qaldama shabaabna hadda waa dhamaaday barnaamijkooda waa dhamaaday wax jirdilay ma dirin waa la weydiiyay maadaama markii hore aan gadoomiyaha ay weydiiyay gadoomiyaha aan ka adkaystay waxas ma jirin gadoomiyahan dhahay waxaan u dhahayna waxay ahayd 4 sano ka hor waxaan meel geli kulli cidii soo qaday ani kulli waa dad baxda taagna waxyaabaha maartay lagu soo eedeeyay sida runta ah maanta runtii taagan tahay xaqiiqda in ragga hore baan isku uga wareystay xalay ilaa saaka xaqiiqdana waan bixiyay marka saaka maxaa rabaa marka hadda marlaad in ehelada bateen idin cadeeyo arinta lagu soo eedeeyay inaan luq aan ku yahay xilli hadda laga joogo 4 sano ka hor taliyaha amniga degmada Luuq Siyaad Cabdiqaadir Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Luuq Mudane Maxamed Xuseen Osman Ganay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay sida ay ku soo qabteen ragani waxaana ay sheegeen inay muddo daba socdeen iyagoona ugu dambeyntii ku guuleystay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen. waxaan ku guuleysanay 10kii bisha markay ahayd inaan soo qabanno in muddo aan daba taagnaynay 1 sano iyo bar ah niman dhagar qabayaal oo fara badan oo degmada ku jira 4 qof ah waxaan gacanta ku soo dhignay 2 qof oo ayaga kamid ah سادرتي waxaan noo suurto gashay wareysi badan kadib inaan gacanta ku soo dhigno alaabtan hortanada ka muuqato waan ku guuleysanay bidilaahi kariim waxaa hadda gacantanada ka maqan 3 bistooladood sida oo aan informationka saxda ah ku helay waxayna cadeeyeen nimankii aan gacanta ku haynay in 3 bistooladood ay gashay 2 kamid ay gashay gacanta dhagar qabayaasha waan sii baari doonaa in ay gacanta gashay in kala xaqiiqadeedana waa heli doonaa waxaan soo qabanay qalab alaabaha qarxa ah iyo raggii ka shaqeynayay muddo dheer laga soo bilaabo 2011 ilaa hadda barnaamijka ayaga gacanta ku hayay oo hagayay shaqooyin badanna ku qabtay oo ay kamid tahay in booyado ciidamada amisom ay lahaayeen walaalahana ay caawinayay ay kamid ahayd dad shacab ah iyo askar bay ku dhamaatay arinta iyada muddo marka waxaan daba soconay ilaa 1 sano ah halkaas sano waxaan raadinaynay ragga gacanta ku haya hawsha iyada ah oo 2 qaybood ah qaybta mutafajiraadka iyo qayb amniyaadka oo labadaba amniyaad ah laakiin haddana mutafajiraadka iyo madax jabisa waxaan noo suura gashay 4 nin oo kamid ah ragga iyaga inaan helno agab fara badan bay hayeen oo maxaa la yiraahdaa bambooyinka gacanta laga tuuro ah miinooyinka remote-ka ah iyo kuwa maxaa la yiraahdaa mobilka oo simkaarada lagu xiro la waca inta isugu jiray markii shaqooyin fara badan oo loo diray ay qaban waayeen in maxaa la yiraahdaa qalabkii nagu soo wareejiyay la yiri sida awgeed marka qalabkan way duugeen meesha ay ku duugeen in maxaa la yiraahdaa waqtiga asaga ha jaanis ay u waayeen oo ay u suuragal weysay inay soo bixiyaan. Galera Video Center channel. Subscribe for daily Somali news update. Thank you.